السلام عليكم daawade ku soo dhawow xalqadii 9aad iyo 10aad ee barnaamijka fariimaha quraanka barnaamijkaas oo maalin kasta oo Ramadaan ah idinka yimaada barta YouTube-ka uu ku leeyahay kanaalka Qumane iyo sidoo kale ciwaanka Facebook ee Sakariya Cabdullah Haruun fariinteena maantu waxa weeye aayada 2 ilaa 4 ee suurada Daha Rabbi waxa uu leeyahay بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا quraanka korkaaga kumaanan soo dejin si aad u dhibaatooto waa sawaanada cidii cabsanaysa waa soo dejinta Ilaaha abuuray dhulka iyo samooyinka sare Rabbi waxa uu ka hadlay quraanka markaas ayaa uu tilmaamay in aan nabiga loogu soo dejin si uu dib ugu noqdo uu yahay waano arrinkaasi quraanka waxa uu kaga yaalaa iyada oo marna quraanka oo dhan Ilaahay ku tilmaamayo inuu yahay waano marna suurada gaar ah Ilaahay ku tilmaamayo in ay waano yihiin sida aayada ah كلا إنها تذكرة oo suurada cabasa ku tilmaamaysa in ay tahay waano waxa la yaab badan in uu Rabbi tilmaamay quraanku in uu waano u yahay cidii rabta ee waano ka dhiganaysa oo ah inta alle ka cabsata kuwa aan iyagu waano ka dhigan ee iska diida waano u noqon maayo waayo shayga nafcigiisa waxa aad heshaa marka aad horta qirto in lagu manaafacadsado oo uu waxtar leeyahay fahamkaas laftiisuna quraanka ayaa uu ku yaala oo waxa uu Ilaahay inoo tilmaamay marka ay suuradii soo degtaba in ay kuwa alle rumeeyay iimaan u kordhinisay kuwa aan alle rumayna ay hoog u sii siyaadinaysay waayo beentii ay awalba beeniyeen ayuunbaa ku sii badanaysa oo waxa ay noqonaysaa aayad kale oo ay iyadana beeniyeen guud marka xalqadan iyo fariinteedu waxa weeye quraanku waxa uu waano u yahay cidii ka dhigata ee ka dheehata oo baadhbaadha macnihiisana dhugata daawade waa inoo bari iyo fariin kale oo ka mid ah fariimaha quraanka ee qotada dheer insha Allah assalaamu calaykum